maaha markii horeysay ee wasiirka maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ay deeqo kala duwan gaarsiiso qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland. wasiirka maaliyadda Soomaaliland waxay maanta mar kale deeq gawaadhi iyo agab dhisme ku wareejisay taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland Sareeye Gaas Nuux Taani waxaana uga mahad celiyay deeqdani ay wasiirku soo gaarsiisay. waxa maanta sharaf noo ah inuu halkan noogu yimaado wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan. Marwo Samsam Cabdi Aadan waxay maanta halkan ugu wareejinaysaa gawaadhi ah oo saambal ahaan kan ka mid yahay iyo qalab dhismo oo ay u baahan tahay qaybtan 31 oo deerkiisu daaci yahay. Marwo Samsam Aadan tii ugu horeysay maaha caawimo waxay ciidanka siiso sanadkan gudihiisa 5,000 oo busta ayay ku caawisay ciidanka jiida hore. waxa kale oo nagu caawisay raashin qalalan. waxa weeyaan Marwo Samsam Cabdi Aadan samafal badan bay wadanka ka geysataa ciidankana waxa weeyaan inta in ka badan ba way u geysatay. waxaan soo qaaday oo yar waxaan ugu mahadnaqnaa Samsam Cabdi Aadan hawlaha qaranka ee ay si hagar la'aan oo qabanayso waana mahadsan tahay ciidankuna waxa weeyaan arintaasi ugu mahadnaqaya. dhinaca kale wasiir Samsam Cabdi Aadan ayaa xustay in dhiirigelinta iyo ka warhaynta ciidamada qarankani leeyahay ay tahay mid muhiim ah waxaana ay sheegtay in ay sii wadi doonto deeqaha ay soo gaarsiinayso ciidamada kala duwan ee Soomaaliland. alxamdulillaah waxaynu nabadda ku haysanaa in wadankeena sida loo manani waxa weeyaan ciidamada aynu haysano ee wanaagsan ee heeganka ah ee isku dheelitiran ee dadka caawiya ee samafalka abaartii 5,000 maana iska bixin bustayaasha laakiinse iyaga dadka caawinayo gurayay oo gawaadhidooda iyo booyadahooga ay u shaqaynayeen oo kaalin weyn ka qaatay marka runtii weynala noqon weyday dadkana bustayaal u qaybinayno ciidankii oo gurayo oo dhaxantii la seexanayo habeenkii oo dhan soo jeedeen iyaguna bilaa bustayaal noqdaan de wax yarna way ahayd marka loo eego waxa ay qabanayaan dhulka ay ilaalinayaan iyo dhulka iskaga gooshayaan runtii Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay miiska militariga maalintii dhaweedan imid quruxda ka muuqatay waa meelaha caalamku يعني أنا قبري هراء يجود ميسي لكن سبعة أنت الود مركان أركي رنتي دي لبضن أي قشين أنا عيدا كنت قالي يقول أنا الدفاع وشدينا القروح يو وناقي يمال القروح بدنا أي سمايستين مركو تليوه يري دير كان قيبتن كوبي سطنادنا وانو ديسينا أيان قناع ستدنا لاحظ لي وحن كل عيدا كهدي دقال كوشيران أو يهوب إبسنيان أو أي بتشيد كوجيين وحيابا بدن كو قبانيانو أي كبحسن دير دسمه هذا دسمه هنا كسو وعدان وحويان إنه كعاونو مركا دور قلوي يقول لهذين وحنا ودي لقبنا أنا كل كيس وسعر دهان طبعا كانوا تشاتورا من ما تيدي كان ديانا وإنه ودي كلاش قينا رنتي ودير قروح بدن وناكسن ماشان يعني نقطة إن شاء الله أد بدو مهندسين أد بندكم مهندق قينا كبدن دم مهندق أفكار واحد نوقف بتاعنا نكون ساحناي ده إلهي أنا قلت رنتي واحد سلاي هاي dhalinyarada ka dambaysa wasaaraddan waxaan u banaynaynaa runtii anigu waxa laga yaabaa dibina muguma waan sheego caafimaad ahaan iyo marmar baan wadaca badan ba 7 sanadoodii ku dhacay marka runtii waxaan isleeyahay dhalinyaradu dariiqa ha qaadaan. ugu dambeyn wasiir Samsam Cabdi Aadan iyo taliyaha ciidamada qaranka ayaa kormeer ku tagay dhismayaal cusub oo lagu kordhiyay xarada miiska saraakiisha ee magaalada Hargeysa. Wafaad Axmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa.